qofkaas ila fadhiyana hadda ba iska barta qof kale maahan waa qof السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وايدي وذا السلامي دمان أصحابتي ميل كسو دوني دافدات كي جوكتان waxay idin leeyahay habeenimo wanaagsan isku soo noqod wanaagsan oo wali bixisa leh ma sha Allah tabarak Allah halkan waxaan soo istaagay saaxiibaankiina hoos ka soo aragteen wax kala maahan fiidiyoga ugu dambeeyay aan xalay soo galiyay ayaa wuxuu dhaliyay murun iyo baraac ayuu dhaliyay oo waliba dadkii dhan ayaa ku murmay number 1 hadaan ka hadlo fiidiyogaasi horta waan ka soo shaqeeyay waan soo qurxiyay si nidaamsan oo soo sameeyay laakiin dadka waxa la yaab la noqday in title-ka aan ku soo qoray fiidiyogaasi laakiin qof walba fiidiyoga uu daawaday title-kana uu arkay gudaha markuu galayna waxyaabo cusub oo waliba yaab kurid ayuu arkay marka sidaa darteeda horta qof walba bini aadan ah wax baa lagu bartaa maanta antaan mahanad ahay wax baad iga barateen waxaas iga barateenna hal waxyaabo kale imaan waxyaabo kala duwan ayaad iga barateen oo waliba kamid ah serious iyo waxyaabo kaftan iyo madadaala ah marka sidaas darteeda fiidiyogaasi maadaama dadku uu ka yaabay qof walba ra'yigiisa ayuu ka soo dhiibtay qaybta commentiga ayuu ku soo qortay qof walba markaas fiidiyogaas daawado commentiga ayuu akhristaa waxyaabaha dadka ay dhahayaan ayuu arkaa qofkaas hadduu in badan ka fikir waayo waxyaabahaasi ama fiidiyogaasi waxyaabo ku saabsan yahay oo waliba waxyaabaha ugu muhiimsan meesha uu ka raadiyo uu ka waayo qofkaas horta bad comment ma soo qorayo bad comment ma ka dhahay commentiga ugu badan horta waxay ahaayeen commenti canaan ah oo waliba madax gal ah jafuu macnaha horta waa leeyahay been maahan aniga waxaan markasta idinku ugu hortaaganahay wax kala maahan sometimes waa saxdaan sometimesna runta ayaad ii sheegtaan oo sometimesna waa wada kaftanaa madaxayaan iska galnaa laakiin fiidiyogan xalay aan soo dhigay qof walba is weydiinaya wuxuu is leeyahay muhaanad muxuu ka damacsan yahay fiidiyogani muxuu sidaan ka wadaa qoftaan cusub iyo tahay dumaashidaan cusub iyo tahay oo mar walba dumaashi cusub miyaana la barayaa sababtoo dib ma lahan كل ورك مهمتي هذا إذا ما تعبنا سنفيلا فيديو واسو دابتي كومنتينا واسو قرتي أما كومنتي دوات آخرستي أوكي قيبت كومنتي يعني قال يا كومنتي هذا أنا أسكر ريكورد يعني كفرية لابا كومنتي لا سيدح كومنتي يعني سو قادنا يا أنت كلنا كور يعني كمرية كدب يعني ورك مهمتي سيدين تعمل دونا إن شاء الله أوكي هدرت مع فرية أسكر ريكورد أوكي فيديو جوا كنا waxaad daabatay 12,258 qof ayaa daabatay waxaad daabatay 12,258 qof ayaa daabatay waxaa comment ka bixiyay 267 qof ayaa comment ka bixiyay like tana saarkiisan waa 1475 dislike tana waa 96 wow 96 dislike so okay dimalahan هدرتان waxaan si guud galeynaa qaybta commentiga ogo horeen horta waxaa jirto comment aan pin ku qabtay ayaa jirto oo waliba soo qortay gabar magaceedu ka bilowdo Amina commentigaasi wuxuu ka bilowdaa gabadha waxay dhahday ogo horeen waan ku salaamay Muhammad Legend waan ka qaad walaashay waxay dhahday waan ku dareemayaa dadkan fariimaha qaldan ku soo qoraya ayaad la yaaban tahay aniga waxaan ku oran lahaa marna gadaashaada ha eegin marna gadaashaada ha dayin huda ayay ku waasheen dadkan huda adiga ayaan kugu baranay ayada ku fahmi weyday oo dadka dhaxdooda kugu dhahday Muhammad waxba naga ma dhaxeeyo janalkooda ayaa ka daawaday adigana intaad respect siin kartid waad siisay ilaa dadka ay dhahaan Muhammad isaga jecel midaasna rag ayaad u tahay dumaashi cusubna dadka iyaga ayaa ka codsaday si aad u qanciso ayaad fiidiyogan quruxda badan u soo sameysay laakiin dadka qaar wax fahmayo way jiraan qaar iyaga wax fahma qaarna ayagoo wax fahansan ayay sidii jaahilka u dhaqmayaan mideeda kale fiidiyogan adiga wali kama dhex sheegin gabadha wajigeeda qarisay inay dumaashi tahay iyo in kale balse waan kaaga fadhinaa libaax baa tahay sorry haddaan hadalka badiyay farxad ku noolow abid horta commentigan xalay markii la soo qoray waan akhristay markaan akhristayna bin ayaan ku qabtay oo waan ka helay waliba waxaan u diray calaamad respect ah okay dadka badanaana like ay wada saareen maxaa yeelay 29 qof ayaa like saartay oo anigan aan ku jiro taasna waxay cadeynaysaa intaas inay yihiin dad wanaagsan oo waliba wanaaga jecel okay commentiga xiga laakiin Muhammad maadna tustid dumaashideena aan aragno wajigeeda ayaan rabnaa
اوكي كومنتيga xiga ku soo dhawow reer ku jecel dumaashi thank you اوكي kuwana naga buuti waxaan soo qaadanaynaa commentiga kale Layla Ladan waxay dhahday marka hore waan idin salaamayaa adiga iyo inta samaha jecel marka xigta waan soo dhaweynayaa dumaashiday haday mar kale dadka dhahaya laba wijiila tahay Mohanad Cade ma ahan laba wijiile qofka noola dhaqmayo qaabka laba wijiilanimada waa taqaanaan waxba hiilo yeesan idinka qaadin anigaba waan ahay dumar laakiin wax kasta waan la socdaa isbedeliska kama helo hodana Mohanad Cade ayaan ku baranay waana walaasheen xiriirna nagama dhaxeeyo iyadaan ka haynaa marka wiilka caburiska ka daaya hore u socda mar walba waligay commentsaan u qoran kuma soo qorin laakiin maanta madaxgalka iga xanaajiyay okay intaan nagu ogeeya horta gooreen walaashii waan ka raali gareynayaa maadaama madaxa laga galay oo walibana aad xanaaqday wal aragteen committee kala duwan ayaa meesha ku qoran oo waliba 267 comment ah oo waliba kala duwan okay hadda waxaan ka hadlayo waa serious 267 comment soo qoray ma dhigi karno waa dad hadal qaldan soo qoray ma dhigi karno laakiin waa dad aniga ugu xiran markastana fiidiyoydeeda aan soo dhiga daawada horta inta madaxa idinka galan halkaan idinka salaamaya marka xigta adduunka waxa ugu xun qof inuu meel imaado meeshii markuu imaadana meel uu wax ka bilaabo uu waayo qof wax sameeyna markuu arko qofkii uu ku dayado xitaa uu kala garan waayo waxaas uu sameeyna ma wax wanaagsana mise waa wax qaldan oo isdhiiw waayo kadibna uu sameeyo taasna waxa ku magacaabi karnaa ma hubsade waa miir laabay qofku waxa fiican inuu wax walba hubsado horta fiidiyogaasi aniga waan ka dhaxadlay laakiin fiidiyoga dhexdiisa wax walba idinkuguma sharxin waxna idinkuma sheegin laakiin title-ka ayaan wax ku soo qoray dadkana title-ka ayaa madaxa ka galay iyo markii arkeen qof aniga ila cabeynaya oo waliba meesha ila fadhiya oo waliba qof dumar ah ima weydiin qoftaan ay tahay oo masaxba ma hadalkaaga masaxba ma brainkiba ma qof familkaaga kamid ahaba qof aniga aan aqaan oo naga qarinaysid miya waxyaabaasna lama weydiin just qof walba wuxuu dhigi karo ayuu dhahay ayuuna commentiga ku soo qoray qaar way la yaabeen oo qaarna way ku daydeen wixii la soo qoray oo kale ay soo qoreen dad badan waxa arkaysaa ku dhahay subscribe-ka ayaan kala laabanay Mohanad hadiisan huda ahayn taas horta wax qurux badan maahan xaqiiqdii maxaa yeelay shalay markaa jananka furnay kaligii ayaan ahaa maanta hadda qof aan keeno qofkaasna aan idin cadeyn waxa naga dhaxeeyo inaad igu qabsataan qalad ay idinku tahay yes maxaa yeelay markastana waxaan ka fikiraa saa fiideo qurux badan aad ku daawan leedin saa idinku ugu soo sameeyo laakiin hadda wax kasta iska kee dhahdaan that's bullshit wax qurux badan maahan wallahi xaqiiqdii fiideogaas intaan soo gelin 2 maalin 3 maalin ka hor waxaan soo geliyay brank aad u qosol badan oo waliba dadka aad ugu qoslaan oo waliba commentigiisa uu gaaray 500 ku dhawaad marka maadaama brankidaas aan saas u sameeyna idinkana ay idinka qosolsiinay maxaa ii diiday marka anigan inaan idinka madaxa idinka galo oo waliba branka idinku ugu sameeyo maxaa ii diiday maxaa yeelay xariiftinimada ay kamid tahay aniga waxa idinka dhigtay qoyskayga sometimes waa idin la kaftami karaa sometimes branka idinku sameyn karaa sometimes na serious ay idinkaga hadlaya oo wixii jira ayaa idin faa'iideynaya misamaha laakiin idinku waxba hubsan ayaa qoriga cabaysateen ayaa baas ugu furteen oo itoogateen so okay dib ma lahan ayadan waxa la qaadan karaa waaye still waxaan halkaan u taaganahay in adiga ku qanciyo oo waliba shalay hadal qaldan ay soo qoray oo waliba i dhahay subscribe aan kala laabanaya ama kuma daawanaya hadii hudda armeeshan joogin horta arintu hudda kama hadlayo aniga halkaan waxaan soo istaagay fiidiyogaas wuxuu ku saabsan yahay inaan ka hadlo fiidiyogaasna wuxuu ahaa prank aan idinku ugu talagalay oo waliba idinka madaxa idinkaga waalo qofkaas ila fadhiyana hadda ba iska barta qof kale maahan waa qof familkayga kamid ah waa qof aan aad isugu dhibnahay ma ahan dumaashidiina ma ahan xaaskayga waxyaabahaas oo dhan ma ahan laakiin waa prank markii la dhahayna prankayga sidiisa nooc walba ayuu kala baxaa soo maha marka aniga noocaas ayaa idinkaga dhigay saan u malaynaya hadda wax walba waa fahanteen horta hadda madaxa idinka gala waa idinka raali garaynaya I'm so sorry ayaan idin leeyahay 100% iga raali noqda 100% iga raali noqda horta marka xigta fiidiyogan saad aragteen waxaan ugu talagalay inaan idinka qanciyo fiidiyogaas wuxuu ahaa inta ka badan mar wina aad ugu sii dheeraado waxaan rajeynayaa inaad shaki baxday oo walibana aad caadi noqotay
arrintan kale oo hudana marka la ayaan ka hadli doonaa insha Allah laakiin hadirtaan mowduuceena kuma jirto marka anyway wad ku maasantiin maadaama muuqaalkaas qurux badan ku rumaysteen muuqaalka xigta kulmeen waxay kaga tagayaan anigoo mahanada bash iyo barwaaqi caafimaad insha Allah bye bye